بسم الله الرحمن الرحيم وعنا وناكسن داوديال habeen wanaagsan meel kasto ay joogtaan soo dhawaada daawadayaal rag hubaysan oo askar ah isla markaana gaadiid dagaal oo fara badan wata ayaa la soo warinayaa inay guurdhow gudaha u galeen geerisa iyo deegaanada hoos yimaada ciidamada militariga Soomaaliland ayaa caawa lagu go'doomiyay tuulada Gaarisa waxaana xogta la helay ay tilmaamaysaa in ciidanka beesha Ciise ay dagaalka toos ugu soo biireen raggan ciisaha la yiraahdo waa rag dagaalyahano ah oo intooda badan ku fiican khibradaha dagaalka waxaana dad badan aaminsan yihiin dagaal walba oo raggan lagu qaado ama dagaal walba oo raggan lagala hor yimaado in aakhirka iyagu ay guuleysan doonaan oo aysan jiri doonin meel raggan lagaga guuleysto sabab la xiriira in raggan ay yihiin rag dagaalyahano ah waa kuwa beesha Ciise haddaba Gaarisa waxa la soo warinayaa in wali dhiigii shacabka Soomaaliyeed uu wali ka daadanayo oo askar hubaysan oo ciidanka Soomaaliland toos ay u tooganayaan dadka rayidka muuqaalada la helay ee amakaaga iyo la yaabka kugu abuuray waxa kamid ah qof shacab oo aan hubaysnayn oo ul wata ayaa askari militariga Soomaaliland intuu u soo fiiriyo buu dhafoorka ka tooganaya yacni waxyaabaha argagaxa ku abuuray beelaha Ciise iyo Samaroon ee keentay in Ciisu dagaalka ay ku soo biiraan horta taas kowka marka dagaalku saam ku joogsada maya Ciisaha iyo Samaroonku nin walba gaarkiisu u cadgoosanaya sababtoo ah dadka shacabka ah ilaa hadda la xaqiijiyay dhimashadooda waa 7 qof waxa dhaawaca 23 7 qof waxa la sheegay 5 kamid ah inay yihiin beesha Ciise labada soo harteen ay yihiin beesha Samaroon dadka dhaawaca ayaga marka qabiiladooda maadaama Ciise iyo Samaroon ay iskugu jiraan ma xaqiijin inta dhaawaca Ciisaha iyo inta Samaroonka dhaawaca ka laakiin hal mabda bay markii ugu horeysay Ciise iyo Samaroonku ku dagaalamayaan oo ah in ciidanka Soomaaliland laga argoosto iyadoo xaaladdu halka ay marayso ayaa dhowr mar oo kala duwan odayaal dhaqameed isxilqaamay oo arintan dabcan la socday waxay soo jeediyeen in aqliga iyo miirku uu shaqeeyo isla markaana meel la iska dhiga wax walba oo dhibaato ah taa bedelkeeda laga wada shaqeeyo in Gaarisa ay nabad iyo xasilooni ku dabaalaan dadka walaalaha daawadayaal hore baan idinkugu sheegay ani muuqaalo horena waan idinkugu sheegay reeshaq Isxaaq ma rabaan inay heshiiyaan nimanka la yiraahdo Samaroonka iyo Ciise sababtan waan idin raacinaya reeshaq Isxaaq hadii ay heshiiyaan ama xasilooni iyo nabad ay noqoto oo ay heshiiyaan beelahan Ciise iyo Samaroonku reeshaq Isxaaq nabad heli maayaan waxay rabaan Ciise iyo Samaroonku inay madaxa isla galaan meel walba iska soo weeraraan okay hadii Ciise iyo Samaroonka heshiiyaan Djibouti ba hore waxay u ballan qaaday inay maamul la yiraahdo guban ama maamul la yiraahdo awdal state la dhisi doono si marka fursad aan maamulkaas loogu helin reeshaq Isxaaq weynay raggan ka dhex adeegtaan Gaariso oo xal nabadeed u yaalay Soomaaliland ciidamo inta geysay baa dad ka soo jeeda Ciise iyo Samaroonka la laayay maxaa la xiriiriyay marka wax la xiriiriyay ma jirto waa in marka Soomaalida waxay ku maamahdaa nin aan sharci ka celin shantaada furood baa ka celisa sharciga ninkan uu celin waay maaho shantaada furood iskaga celi xal kale ma leh Soomaaliland ciidamadooda calaay kulli xal caawa go'doon bay ku jiraan waxaana laga cabsi qabaa inay isdifaacaan way u badan tahay nimankan Ciise iyo Samaroonku nin walba dhankiisu ka qaraabanaya marka waxa halisa ciidanka Soomaaliland oo tuulada ku sugan in dhinaca koonfureedna Ciise uu ka soo galo dhinaca galbeedna uu ka soo galo Samaroonku rag laga dhigo wax la dilay iyo wax la qabtay sidii waagi gooja cadoo kale inay ka dhacdo meeshaasi qarka u saaran tahay qarka ayay u saaran tahay halka ugu dhow marka dad badan waxay u arkaan inuu yahay in wada shaqeynta iyo walaaltinimada la xoojiyo isla markaana wixii khaladaada ama dhib keeni kara meel la iska dhigo iyadoo xogahan helayna ay tilmaamayaan in maalinba maalinka ka dambeeysa la arkayo war aan wanaagsaneen oo dhiilo leh oo ka imaanaya darafyada isku haya arrimaha siyaasadda ila wareedyo kala duwan ayaa warbaahinta waxay u sheegeen in toddobaadyo ka hor madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro uu warbaahinta u sheegay isla markaana u xaqiijiyay in uusan isagu aqbali doonin yeeli doonin in Ciise iyo Samaroonka maamul ay dhistaan hore uu u sheegay ninka warkiisu uu cadeystay soo kale wuxuu sheegay in uusan yeeli doonin isla markaana uusan aqbali doonin wax walba oo loo arko in ay xasiloonida iyo caqabada dadkan walaalaha wax u dhimayso wuxuu sheegay Ciise iyo Samaroonku inay ka tirsan yihiin dadka Soomaaliyeed ee Soomaaliland badalkeedana
dad badani waxay u arkaan haddii labada beelood heshiiyaan in maamul ay dhisayaan reer Sheekh Isxaaqna dabcan taasi ayay ka dhimanayaan waana waxaan dhowr jeer sheegay oo ah in Ciise ay Samaroonka heshiiya reer Sheekh Isxaaq aysan dan ugu jirin markan ila daawada muuqaalka odayaashan Ciise weyne great nation warad salaamaya maanta hadal badan ma hayo wixii aan sugaynay way dhashay wixii reerkii aan lahayn war edab daraad nagu haysaan reerkii la xeer dhigan maysaan war isaaq baa inagu soo duulay war Gadabuursi ma odayaashan tabcaanka ee Gadabuursi $20 baa la soo siiyay ee saylac yimiday ee dhiga Ciise waa xalaal ah oo jannada lagu tagay hadii la dilo waa la iibsaday waayo waxa ma haystaan rag baa ka dambeeyay ka dambeeyay kuwa TikTokeriska ee Gadabuursi lacag baa la siiyay waxa loo soo isticmaalay Abu Khalifa inuu hawsha fuliyo isaaq inaga muddo dhanba anigu intaan hadlayaba ula boocu noogu kubay waa in raadinay marmarsiyo inoo raadinay guri la gubay hadday sheekadu tahay guriyihii intii la gubay wad ogtiin raggii gubay way isku soo wariyeen Gadabuursiga mid qoro la soo qabtay ma jiro mid qoro la xidhay ma jirto way isku soo wariyeen ninka maayirka ka ah Ali Xayd ninka maayirka ka ah Lughaya raggii wadaba ahayn guryaha la gubay baasinka u siday Gadabuursiga ee isku soo wariyay haayeen cid wax tiri ma jirto waxa dhaadeen guri baa la gubay waa meel bacoosh baa leeyahay coosh meel cawsa oo kuwa dib jiro Gadabuursi seexan jireen ayaa la yiri guba markay gubeen waxa la yiri Ciise guba la oranaya waa pretex marka horena iyaga ka dambeeyay Gadabuursiga inta waan sheegayn online war isaaqani wacada kula walaala waliba kuwa inoogu xiga inoogu daran war inta war hadlayo tolkay waa been baad sheegtay ma oran kartaan aniga nin waaran bay qaarkood i haysteen markaan laha waxa iyo ku sheegay iyo qaarkood lahaayeen boorka markii la gubayay baan sheegay dhibaatadii boorka laga waday baan sheegay wax badan ba waan sheegi jiray in reerkaasi inoo baahan yihiin laakiin nasiib wanaag maanta ayay bilaabeen isaaq wuxuu isqariyaba kolba gidaar ku dhuuntaba kolba spin doctor noqdaba xagga dambe ninka xagga dambe wax ka soo wada leeyahay spin doctor baa leeyahay xagga dambe ka soo kaxeeyaan Gadabuursiba maanta soo baxeen aqalkii markii la gooyay anaga garanayna cidda gubtay oo waa Ciise Gadabuursana gubaysa la sheegay subaxii bay ku soo kalheer carruurtii iyo dumarkii oo guryaha joogo ragii ka baxeen ayay u yimaadeen waaniga arkay hableeni geesinimada oo adiga qoriga afka haysta gabadh baa qori lagu dhiftay oo ilmihi ka soo dhacay ninka meesha waa haysta ciidanka haysta waa habarawal waa maxaa la yiraahdaa Jibriil Abubakar qolada la yiraahdo way aniga Ciise gumaynayo dilayo waxa suuqay iyaga dhibaatada geystay sidaas ku yiri dadka meesha jooga aniga xasuuqayo waka kuwa inoo xiga inoogu daran isaaqa kuwa guryaha nala jooga ayaa inoogu daran dadkeena ku xumeynayaan dawladda Djibouti ku xumeynayaan madaxweyne Ismaaciil Margeele ayay ku xumeynayaan dilka ay ka geysteen magaalada la yiraahdo Garissa waxa lagu xumeynaa waa rarku doodoon dilka dadkeena ay u geysteen inaga la inagu doodoonaya albaabkii gurigeena la garaacaya marka gudaha in la soo galaad u hadhay warku dawaacadiya Ciise laba mid bay noqon ugaaskaygiyo laba mid bay noqon inaan inagu aagubo leena soo afjaro gumowno iyo inaan isaaq iska xilna labada mid bay noqonaysaa mid saddexaad ma jirto soo inooma soo badheerinaysaa soo ma oran Ciise gumaynaya soo askari nooma keenin soo dadkeeniyo fadhiyo dagaal kuma qaadin dawayna iska xilna waa dawladda Djibouti waxaan leeyahay waxaan la leenayaa waa dadkaaga waa ehelkaaga waa qaraabadaadi qoriyaha waaweyn baa sita la dhacay dee dadkaaga inaad difaacda dad doonaysan qoriyaha weyn siiya daroontan siiya xeradan hala baabiyo Garissa ku taala Bafalson waa inaad qortaan halka Ciise Isaaq waa inay kala faraxashaan waa in mid la soo afjaraa dhibaatada inagu hayeen waa dhig oga
ay nagu hayaan deegaankeenna ku hayaan waxba inooma ogola innagoona dowladda waxba ku lahayn oona saamiqaysi ku lahayn oona hal director ku lahayn maamulka Hargeysa hal nin meel madax ka lama soo helayo baarlamaanka nin ku jiro ciisa lama soo helayo intaan deganahayna waad ogtiin waxaa soo dhan annagoo qabna oo aamusan oo iska daawanayna ayay noogu yimaadeen noloshii haddana oo inay dagaal dadkayga ku qaadaan oo laayaan haddaad dhimato geeridu marbay nolosha dhaantaa marbay dhaqashii iyo kaa yihiin dhere guxaaraan dhashaaday sugtaa xaajadaa dowrataa abid ula boocay noogu tukubayeen for long time isa warogahay anigu waan ogaa inay ula booca noogu tukubayaan waxaan gadabursi xagga dambe ka wada inay iyaga yihiin waan ogaa tolkay waanu sheegayo dawo ima dhegaysanin laakiin maanta tolkay inuu ifahmayaan marayn qadii wixii aan ka hadlayo way arkayaan soo dadkeennii oo guryaha iska fadhiya dagaal laguma qaadin soo hableheennii maahan waxa la jiijiidayay ee isaaqu jiijiidayeen ee qaar bay dharka ka saareen oo qaawiyeen baa layidhi qaarna ilmihii bay ka soo rideen war maxaan sugaynaa markaa ciiso miyaan gumownaa mise isaaq waan iska difaacnaa maanta maalin aan ka awood badan oo ina soo maraysaa ma jirto dunida taariikhda maanta wixii aan qabsani weyne weligan ciiso